waxaa taagan xeebta Muqdisho gaar ahaan Kawaan bari ku aadankiisa markabkaasoo la sheegay inuu yahay markab sida shixnad macaawina ah. Wuxuu taagan yahay muddo 14 beri ah. Wuxuu habeenkii halkaasna nalal ka shitaa iyadoo la arkayo inuu biyaha u dhow yahay xeebta. Wuxuu taagan yahay dekeda weyn Muqdisho waqooyigeeda qiyaastii u jirta 3 kiiloomitir. Kawaan bari markaa joogtana wuxuu dul aadan leedana ka xiga dhanka waqooyi isagoo u jira 3 kiiloomitir. Shaqaale ka mid ah dekeda Muqdisho ayaa Bogornugud Media u sheegay in loo sheegay inuu yahay markab shixnad macaawina ah sida dalku ka socyo wali lama hayo. Waxa uu noo sheegay qoftan shaqaale ah oo ka shaqeeya dekeda in loo diray kuwa doomaha soo dhaweeya markabka oo soo riixa. Dabcan waa garanaysiin fariintina badan balse ay doomahaasu soo riixi waayeen oo shiidsan yahay. waxaa dad badan oo noo sheegeen la xiriirnay wax ka weydiiyay maadaama sababta ma u taagan yahay la yaab tahay oo la ku xirin dekedina banaanta boos hadu ku xirto u banaaya inuu yahay markab inuu caari ku dhow yahay. Markaasi dawladdu wali war kama soo saarin balse dadku daan weystusaan xeebta markaa tagto Kawaan bari ilaa liido markaa tagto caadiga faraha lagu taagtaaga wala istusaya. waa markabana saaidna ahay weynkiisu hanaan yareen qiyaas ah biyaha haladu uga jiro ma helno laakiin fidsanaadiisa muuqaalkiisa ma sii baaxad weyn. Dabcan waa qiyaas waa markab dhexdhexaad ah wax sida macaawina sidaas waxaan ugu qof shaqaale ah oo dekeda ka shaqeeya weyn doominkana way soo riixi waayeen. Markaa dabcan imihiisa rarka looga diji doono si dooman loogu daldalo taasoo dhib ah iyo in riixitaan loo geeyo doono marsada dekeda si ugu xirto lama kala helo. balse Bogornugud Media oo wareysi badan la yeeshay shaqaalaha intaas ay noo sheegeen dadka deegaanka ah ku nool inta badan degmada Cabdicasiis Kaaraan ayaa si weyn looga arkaa markabkan. habeenkii uu nala shidayaa maalintii uu taagan yahay. Marka Bogornugud Media wixii soo dhaca asxaabtina sharafta leh waa la socodsiin doonaa sheer dhaha leeg saara boggaan wuxuu soo tibid doonaa wax walba oo cusub amba deegaanka ah. marka asxaabtina maasantiin fadlan booqdo YouTube kan saa oo wax badan mahadsanidin asxaabtina qaaliga ah.